masjid jaamaca magaalada Baraagaha qol ee gobolka Sanaag ayaa waxaas ka muuqda burbur ballaaran haddaba si dayactir loogu sameeyo ayaa culimada iyo waxgaradka magaalada waxa ay baaq u tireen bulshada islaamka si ay uga soo qayb qaataan in dib loo hagaajiyo masaajidka Sheekh Axmed Cabdi Dalmar iyo Sheekh Abshir Axmed Ciise oo kamid ah culimada gacanta ku haysa dhismaha masjidka ayaa ummadda islaamka ka codsanaya inay ka soo qayb qaataan dayactirka masaajidka jaamaca magaalada الجامع بركضها قل وهذا ركان ولا شقينا شقة قصعته إن شاء الله تعالى وحلو به ولا ليال وحي الله لوحي من رسوله عليه الصلاة والسلام وحين من بنى بيتا لله قري إلهي ومساجد قفك للصاه وإلهي درتي ودس وحقود الصلاة وهو حقليا بنى الله بيتا في الجنة إلهي وحقودس وقدس الجنة دحية بيد وناكسن والجنة كويال مركز درتي دوالي وحندونينا وحي معناه وحوي ولا إسلامه ama si dadka deegaanka u dhashay meel kasta jireen oo macnaha waxa weeyaan qof balaare in laga qayb galo in la dhiso waad aragtaa dhaqaale fara badan buu u baahan yahay waxa lagu wadano dad wax weeyaan muxsiniina oo deegaanka ah ayaa waxa weeyaan ku baxsaday waalidkood iyo naftooda u waqfay wax galiyay kuwaana ilaahay waxaan ku baryeynaa inuu ka abaalmiyo jannatul firdaws iyo waalidkood bayagana caafimaad iyo barako waxay bixiyeen ilaahay ugu bedelo wax ka khayro oo masaajid wax ku dara oo ku hagaajiyo ka camira oo dhaqaale iyo wanaag iyo dhisme ku sameeya waxa weey sidaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam guri ilaahay beyd baa uga dhisan buu ku talageliyaa jannada ilaahay u diyaariyay markuu dhinto bir qiyaamada marka saadarteed walaalayaal hal la ogaado wuu furan yahay waxa weeyaan dhaqaale fara badan buu u baahan yahay qofkii daneynaya jaanis furan weeye adduunka iyo aakhiraba ha laga qayb gal qof kastooba ha loo tartamo saarucu ilaa maqfirati min rabbikum baa ilaahay walaalayaal waxaad u orodaan u tartaan jannada إلهي جنة waxay ku jirtaa masaajidka ayay meesha weyn ku jirto oo laga qaadanaya oo kaydkii la bangiga Ilaahaya islaamku masjidkaas martuu yahay meel kastuu joogo dadka islaamka masjid islaamna kala xigo waxa weeye waa beed Ilaahay wuxuuna anfacaa islaamka sida looga sheekeeyay weeye waxaanu ummadda ugu baaqaynaa u diyaara inay wax baxsato ama waalidkooda wax u bixiyaan waxa weeye inay sida ay tahay oo محمد صالح SBC قروي